fadhigan caawo dhalinyaro badan waana sida istaagga ku ahayd waxaynu ka sheekaynaynaa wax annaga laga dambayn doona inaannu aragno waanu jecel lahay isbeddelkaannu doonayno in aannu aragno isbeddelka aannu doonayno waa jecel lahay laakiin dee mar haddaa da'da la gaadho dee walwal baa ku galayo idinkaa dee xilliga ilaahay waa wakhtigeedii laakiin idinkaa nagale oo hawshan markaa dhalinyaro badataan caawa halka fadhiga waan ku faraxsanaa runtii mana ahayn abaabul weyno bulsho badan inaanu la hadalno ma ahayn ku talagalka yagu inaannu warka gudbinno unbuu ku talagalka yagu ahaa inaan naga soo qayb gashaanna aad baan ugu faraxsanaa runtii waxuun baan runtii halkan ku soo koobi doonnaa insha allaahu intii ay akhriyayeen raggii igu horreeyey ee aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta iyo dhaqankaba lahaa ayuun baanu halka kusoo goobay waxay dheer tahay keliya maxaa inaga go'aana oo ereyga ugu dambeeya sheegaynaa go'aankii maxaynu waxaan go'aan ka gaadhnay wey maanta dee berri ilaahay bay ku taallaa xilli dambe marka inaynu in yar isdhegaysano runtii qoraal baan akhriyi doonaa raalli ahaada qoraalkuna far yarar buu ku qoran yahay xasanadaas baa soo daabaco aadna indhahaygu sax uma ahe inuu in yar kala fogeeyaabay ahayd laakiin waxaan isku dayi doonaa in akhriya garasa yaader sorry waa war murtiyeed wuxuu leeyahay annagoo ah salaadiinta odayaasha siyaasiyiinta aqoon-yahanka haweenka iyo dhallinyarada gobolka awdal iyo selal kana wakiil ah qaybaha bulshada aannu hoggaanka u nahay waxaannu maanta oo taariikhdu tahay bisha 9aad 6deedii 2019 si wada jir ah u go'aaminay inaannu warmurtiyeedkan ugu soo jeedinno guud ahaan ummadda somalilan gaar ahaanna xukuumadda madaxweyne muuse biix cabdi oo hoggaanka u yahay golayaasha qaranka iyo xisbiyada qarankaba inaan warmurtiyeedkala soo gudbinno ayaannu soo go'aaminay dhab ahaan gobollada awdal iyo selal waxay hormood ka ahaayeen shirweynihii burcee sannadkii 1991 beelaha somalilan ku nabdeen kuna heshiiyeen in midnimadii 1960kii koonfurta soomaaliya lala midoobay lala soo noqdo kadib dhibaatooyin laga dhaxlay midnimadaas lana dhiso qaran jamhuuriyad somalilan ay leedahay oo loo dhan yahay heshiiskaas shirweynaha burco waxaa wada saxeexay salaadiin odayaasha iyo waxgaradka beelaha somalilan bishii 5aad 1991 oo ahaa ergooyin ka wakiila dhammaan beelaha wadadega dalka maxmiyadii ingiriiska xorriyadda ka qaasay 26 juun 1960 la soo noqoshada qarannimada jamhuuriyadda somalilan gobollada awdal iyo selal sida beelaha kaleba waxay garteen in dantooda siyaasadeed dhaqaale horumar iyo cadaaladeed intuba ku jiraan la soo noqoshada qarannimada jamhuuriyadda somalilan maadaama ayna beelaha gobollada awdal iyo selal sida beelaha kaleba aanay mahadinin midnimadii 1960kii lala midoobay koonfurta soomaaliya heshiiska shirweynaha burcee 1991 waxaa lagu caddeeyey qoraalkiisa in la dhiso qaran ay wada yeeshaan dhammaan beelaha somalilan si cadaalad ahna loogu qaybiyo dowladnimada heshiiskaas waxaa wada saxeexay 18 suldaan oo 9 suldaan ka wakiil ahaayeen beesha dhexe halka 9 suldaan ee kalena ka wakiil ahaayeen beelaha darafyada sida dhulbahanta warsangari ciise iyo gadabuursi tiradaa isleeg haddaba waxaa looga dhigay in tusaale ay u noqoto dhismaha dowladnimo loo siman yahay oo soo socota waa shirkii burcakaas sidaa daraaddeed innagoo taa tixgelinin haddaba maadaama heshiiska noocaasa la galay beelaha awdal iyo selal waxay xil weyn iska saareen tan iyo dhismihii jamhuuriyadda jiritaanka qarannimada somalilan nabadaynta iyo midnimada ummadda waxayna hormood ka ahaayeen nabadayntii dagaaladii sokeeye dhex maray beelaha wadadega burco sannadkii 1992 dagaaladii sokeeye ee ka dhacay berbera iyo martigelintii ergooyinkii beelaha somalilan ee shirweynihii boorama sannadkii 1993 shirweynahaas oo lagu dhisay xukuumaddii labaad ee jamhuuriyadda somalilan kadib markii ay dhammaatay labadii sare ee xukuumaddii SNM
dhab ahaanna martigelintaas ergooyinka shirweynaha boorama beelaha gobollada awdal iyo salel waxay ku bixiyeen juhdi wakhti badan iyo hanti intaba siduu shirweynahaasi nabadgelyo iyo guul ugu dhammaan lahaa iyada oo lagu jiray xilli xasaasi ah dhismaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliya wuxuu ka bilaabmay kuna dhisan yahay hab beeleed tan iyo dowladdii asanam ee lagu dhisay shirweynihii burco xukuumadihii kala dambeeyey ee dalka soo maray ilaa xukuumadda talada dalka haysa hadda muddadaas oo dhan beelaha gobollada awdal iyo salel waxay ka hadlayeen cadaalad darrada ka jirta wada lahaanshaha dowladnimada jamhuuriyadda soomaaliya beelaha gobollada awdal iyo salel waxay qoraal ahaan ugu gudbiyeen xukuumadihii kala dambeeyey wax ka qabashada tabashooyinka ka jira wada lahaanshaha dowladnimada jamhuuriyadda soomaaliya si loo hirgeliyo qodobadii wada lahaanshaha dowladnimada ee heshiiskii burco ee waxay beelaha somalilan wada saxeexeen heshiiskaa wada saxeexeen sidii ku qornayd tabashooyinka beelaha dariifyada ee saabi qaybsiga dowladnimada waxaa warbixin ka soo saaray aqalka wakiilada sahan uu ka sameeyey dhammaan gobollada dalka sanadkii warbixintaas oo loo gudbiyey xukuumaddii madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo wax natiijo ahna lagama qaban kadib markii ay kadib markii uu madaxweyne mudane biixi cabdi ku guulaystay hoggaanka dalka waxay salaadiinta odayaasha iyo siyaasiyiinta beelaha gobollada awdal iyo salel oo ka wakiilahaa shacabkooda si toosa ugu tegeen ugalana hadleen muuse biixi xafiiskiisa sanadkii horraantiisii waxay si ballaaran oo tafatiran ugu sheegeen madaxweynuhu inuu wax ka qabto cadaalad darrada saami qaybsiga awoodda lahaanshaha dowladnimada sharci dejinta xukuumadda iyo cadaaladda oo muddo dheer soo jiitamtay madaxweynuhu wuxuu odayaasha hortooda ka ballan qaaday in uu fulinayo tabashadoodaasi aan doorashana la gelayn ilaa taa wax laga qabto saami qaybsigu haddaba aynu sheegaynaa ma aha keliya xubnaha golayaasha sharci dejinta sida dad badani u fahmeen beelaha somalilan uma sinna wada lahaanshaha laamaha dowladda oo dhan tusaale ahaan beeluhu uma sinna xubnaha madaxda qaybaha fulinta sida wasiirada hay-adaha madaxa bannaan ciidamada oo in ka badan boqolkiiba 80 ay gacanta ugu jirto beesha dhexe inkastoo beesha dhexe laftirkeedu u sinayn awoodaha fulinta uu magacaabo madaxweynuhu waxa kale oo loo sinayn ilaa ilaha dhaqaalaha dowladda shaqaalaha dowladda mashaariicda horumarinta iyo maalgashiga mabaadi'da dimuqraadiyaddu waxay nafaraysaa in aan tiro la isku muquulin karin dadka tirada yar lama muquulin karo dadka tirada yar laguma muquulin karo awood tiro badan sida dadka tirada badan dadka tirada yari keligood awood dowladda ku muquulin karin kii waxaa dhacay golayihii baarlamaanka ee gobolladii waqooyigu ee beriga hal ka tegey waxaa ahaayeen 330 golaha baarlamaanka ee koonfurta aan u tegnayna wuxuu ahaa 90 dabadeed markii saa la iskugu tegey golihii baarlamaanka ee halka ka tegay 330kii oo dabadda jooga ayaa golihii aynu isku biirneen wax wada lahaanshaha aan ka shaqaynaynay oo 90 ayaa shirkii galay dabadeedna waxay go'aamiyeen qodobo adag oo dowladdii Soomaaliya iyadoo aan hal qof oo golihii wakiilada ee Soomaaliland ka tegey aanu ku jirin taasi waa keentay burburkan iyo halaagan aynu aragnay cadaalad darradii noocaas ah halka ka dhacday waxqabad la'aanta haddaba wax ka qabasho la'aanta wada lahaanshaha saamiga dowladnimo jamhuuriyadda Soomaaliya waxay saameyn xooggan ku keentay dadweynaha gobollada awdal iyo salel waxaa yaraatay aaminaadii dadku ku qabeen dalkooda waxaa yaraatay kalsoonidii bulshadu ku qabtay siyaasiyiintooda iyo hoggaankooda dhaqanka waxaa kala furmay
isku xidhnaantii bulshada dhexdeeda waxaa abuurmay dareen ah in awoodda qaranka aan loo waxaa abuuratay maaha waxaa la arkay oo dhaba in awoodda qaranka dalka loo sinayn isku xidhnaantii okay iyo reejo xumo in awoodda qaranka aan loo sinayn waxay walwal weyn iyo reejo xumo ku abuurtay dhammaan qaybaha bulshada gaar ahaanna da'yarta hortayda fadhido oo kale dhaliilaha iyo dhibaatooyinka siyaasadeed ee kor ku xusan waxaa mas-uul ka ah siyaasiyiinta beesha dhexe waxay ka dhaga adeegeen in ay ka howlgalaan sidii qarankan beelaha somalilan u wada yeelan lahaayeen waxay buriyeen heshiiskii wada lahaanshaha jamhuuriyadda somalilan ee beelaha somalilan ku saxeexeen shirweynihii burco waxay horseedayaan taas waxay horseedaysaa inay dalka ka abuuranto khilaafyo beelaysan iyo weliba jabhad hubaysan taasina waxay horseedi kartaa alla inaguma keene waa ereyadii halas burbur haddaan wax laga qaban halkii laga rabay in siyaasiyiinta beesha dhexe dhisaan qaran la wada leeyahay oo dowladaha caalamkuna oo dowladaha caalamkana ka iibsami karta waxay dhisaan dowlad beelaysan oo beesha dhexe ku urursan tahay si ay u tusaan dadkooda in ay nasteexo u yihiin oo beesha dhexe gaal dalka u leedaho kale ayay u dhisaan su-aashu waxay tahay siyaasiyiinta beesha dhexe miyay u nasteexaynayaan dadkooda mise beelaha kale ayay ka horkeenayaan beesha dhexe ma waxay horseedayaan burbur somalilan mise taabagalka somalilan bay wadaan hadday cid gaara halkaasaa ugu qoraan okay dad baa jira haddaba salaadiin waxgarad iyo culimo ka tirsan beesha dhexe ayaa si ballaaran uga hadla ugana garaaba qodobka afraad waxaanu madaxweynaha si sharaf iyo milga ku jirto isagoo oo u fikiraya si qarannimo ah uga codsanaynaan inuu sida ugu dhaqsaha badan u qabto madasha ah lagaga arsanayo dib u sixidda wada lahaanshaha dowladnimada jamhuuriyadda somalilan oo loo wada dhan yahay qodobka shanaad waxaanu waddamada daneeya somalilan deeqbixiyayaasha iyo hay-adaha caalamkaba si buuxda uga codsanaynaa in ay murmurtiyeedka si dhow ula socdaan oy fiiro gaara u lahaadaan aad iyo aad iyo aad baad umahadsantihiin asalaamu calaykum raxmat ullahi wabarakaatu